marmar waxaan is idhaahdaa maalmahan axbaabta dhexdooda markaan arko maxaa u soo gaadhays maxaa raggii hore ilaahay anoo dambi dhaafaamin dhahda walaalayaal nicmad baa ilaahay na siiya nicmaddahan ilaalinno camalkan raggii u soo tadxiyooday albaabka aad ka soo galaysaan buu dhiigooga ku daatay albaabkaas hanbaxno reer muqdisho khaasatan waxaan ilaahay fadhiga ka kaca in yar baad nabadda yar baad hesheen adduunyaha u noqonina ninka maanta adduunyo u noqda uu khasaaray ummaddana uu khasaarina ogaada أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والصبح ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بأنه مهنا قينا كولا كادين يدي نقص وقيب قليل وقتك واسكدك دقيا ومن علامات الساعة زمنك إنه سكسور دواني دونو oo bishii sanadkii uu la mid noqon doono bishiina loo malayn doono maaragtaane usbuuc wiigiina hal maalin loo malayn doono waa min calaamaati saaca oo nabigana sii sheegay calayhi salaatu wasalaam kal hore kulankiisii intii u dhaxaysay adduunka imisa isbeddel ka dhacay dad nala noolaa kal hore ayaa maanta adduunyada aanan joogin oo dhinsan dad caafimaad qabay oo inala joogay way bukaan oo way jiran yihiin dadaan adduunka joogin way yimaadeenoo waa sanad bay jiraan baa lagu odhanayaa ilmahani sanad buu jiraa baa lagu odhanayaa sanad isbeddelkaa dhacaya iska daaya ilbiriqsi darfata cayn ayaa adduunka isbeddel ka dhacaya isbeddelladana ilaahay baa keenaya saacaddaa hadda aan wada hadlayna inna way dhimanaysaa inta dhimanaysana dhimashada ilaahay baa u qadaray inna way dhalanaysaayoo adduunkay imanaysaa oo iyakuna qadarta ilaahay bay adduunka ku yimaadeen inna way bukoonaysaayoo saaka dhakhtarrada ayaa loo wadaa inna way caafimaadaysaayoo saaka dhakhtarrada ayaa laga soo saaraya oo laleeyahay bal uu roonaaday baa laleeyahay guriga geeya inna saaka way faraxsan tahay oo waxaa laga yaabaa caroos inay u dabaaldegayaan inna waxaa laga yaabaa saaka inay murugoonayaan oo aqalkoogii mayd uu dhex yaallo isbeddellada adduunyada ka dhacaya ayaa keenaya allah baa keenaya allah يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أمرك حق سروك إيمانيا isbeddelkuna dhulka dusheeda ayuu ka muuqanayaa
faysaladu waa xagga inaga sarraysa waa maqaadirta ilaahay azza wa jalla ilaahay baa sida adduunka ugu tala galay oo nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yiri ilaahay khalqigan markuu abuurayay wuxuu ugu horeysay abuurka laga bilaabay qalam buu ahaa qalam markaas ilaahay ku yiri qalamkiiba amar la siiyo leedo qor markaas uu yiri rabbi maxaan qoraa ii sheeg markaas lagu yiri uktub maqaadira kulli shay hatta taquma saa'a ilaa saacada qiyaamadu ay dhici doonto waxa adduunka ka dhacayay ee maqaadira qor baa lagu yiri basharku inta qaybood ay noqonayaan kala qor weeyaan imisa muslima imisa gaala ah arba gaalnimo ku dhalanaysa hadana laakiin islaamnimo ay ku dhimanayaan arba islaamnimo ku dhalanaysa hadana gaalnimo ay ku dhimanayaan arba fuqaraaya arba aghniyaaya arba madax noqonaysa qaarna adduunka intay joogan dhib iyo rafaadun bay ku jirayaan ogto maqaadira kulli shay waxa adduunka ka dhici doono dhan baa lagu yiri qor hatta taquma saa'a ila saacadu qiyaamadu ay dhacayso hatta murugtii baa la qadaray oo farxadii baa la qoray oo dharagii baa la qoray oo gaajadii baa la qoray oo ajaashi bini aadanka iyo cimrigoodii baa la qoray oo arsaaqadii baa la qaybiyay خلق الخلق وأحصاهم عدد إلهي خلقك إساقا أبورتي وأنا أترك وبيهن إلهي عز وجل قسم الأرزاق ولم ينسى أحد إلهي أرزاقنا إساقا قيبيي عدنا إلهي تبارك وتعالى مهل مامو وحا بني آدن الدوية كوركي دجوغ أرزاقنا إلهي باهية من مالك خلقك لأبوري إلى جوغدنا أرزاقنا والله يا خلقك waxay isdhimaysana haba yaraatay ma jirto inaka dhaxdeena baa hadalladan la soo celceliyaa noloshii baa adkaatay maciishadii baa kacday ascaartii baa qaaliyowday laakiin bani aadamku way iska nool yihiin way dhamanayaan way dhalanayaan way badanayaan way tarmayaan way cabbayaan way cunayaan way seexanayaan way soo kacayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamka isaga ugu talagalay noloshaas مخلوق كلا إلهي وحبه ومديبه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا مخلوق كلا إلهي وحبه ومديبه ولا ليال وأي عدعاد صوب حيسا أمرك إلهي بيكو صوب حيسا هذه عداد أمرك أيكو سعوته مخلوق لودي بلها ولو لها الدولة سينكو عدعاد معمولة qoladaa kale inakuna dayaxa maamula qoladaa kale inakuna biyaha maamula qoladaa kale inakuna hawada maamula qoladaa kale inakuna arsaaqada waxa la cunaya maamula bini aadanku gaajo isku leedili lahaayeen baa ilaahay yiri qofka kale waxba siiyeen qofka kale waxba uma ogolo lidalika khazaa'inta ilaahay azza wa jalla ilaahay isaga maamula isaga haya khazaa'inu sihha caafimaadku khazaa'intiisu ku jira xanuunkuna kadalika khazaa'in buu leeyahay ilaahay agtiisu yaala oo cid ilaahay caafimaad uu qadaro cidna xanuun keeni kari mayso cid ilaahay azza wa jalla ma aragtaan xanuun ku ridana cidna caafimaadka ma siin karayso kadalika arsaaqaduna waa lamid arsaaqaduna khazaa'inteedu ilaahay agtiisa taala qofka ilaahay jalla wa ala uu ka dhiga qani cidna faqiir ka dhigi kari mayso qofku ilaahay faqri uu qadarana ilaahay jalla wa ala cid qani ka dhigi karaysa ma jirto cid ilaahay faqiir ka dhigo marka khazaa'inu kulli shay wa bi yadi illaahi azza wa jalla haday nolol tahayna noloshuna khazaa'intiisa ku jirtaa oo sida nolosha ilaahay u abuuray buu haddana ilaahay geerida u abuuray alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwa al-'azizul ghafuur ilaahay azza wa jalla waa ka geeridana abuuray noloshana abuuray weeyaan ilaahay noloshan adduunyada ee dhimashada ku dambeeynaysan ilaahay baa abuuray oo bini aadanka ku abuuray oo keenay nolosha dambe aakhire ee waaritaanka u saaxiibka dadku hadii ay galaan ay sadhimanayna ayadana ilaahay baa abuuray tabaaraka wa tacaala marka noloshiina gacanta Allah ku jirtaa dhimashada gacanta ilaahay bay ku jirtaa faqrigu gacanta ilaahay buu ku jiraa ghinaduna gacanta ilaahay bay ku jirtaa nabadgelyaduna gacanta ilaahay bay ku jirtaa cabsiduna gacanta ilaahay bay ku jirtaa
meesha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu amni dhigana cidna colaad ka ridi kari mayso meesha ilaahay amniga uu ka qaado colaad u qadarana cidna maaragtaane amni ma keeni karayso kadaalika maxabbaduna khasaa'inta ilaahay bay ka timaadaa haddaad aragta dad isjecel ilaahay baa isjeclaysiiyey haddaad aragta dad colaad iyo cadaawa ay ka dhaxaysana ilaahay baa u qadaro waa dunuub iyaku ay geysteen cuquubadeedii bay ku sugan yihiin ee ku dhex jiraan nebi nuux calayhi salaam markii la yidhi ummaddaadan waan halaagaynaa cidda adiga ku rumaysay uunbaa la badbaadinayaa makhluuqa ilaahay abuuray oo dhanna iyakuna waa la baabi'inayaa laakiin khalqiga ilaahay abuuray eegoo mid walba laba nuuc ka qaad baa lagu yidhi mid walba labiya dhiddi ka saar nebi nuux calayhi salaam doonta uu samaystayna laba qaybood baa ahayd baa layidhi laba qaybood qayb ay bini aadanku ay galayaan iyo qayb maaragtaane makhluuqa kale ay galayaan markaasaa ilaahay ku yidhi fasluk fiiha min kulli zawjayn ithnayni wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi alqawlu walaa tukhaatibnii fi aladiina dalamuu innahum muqraquun yaa nuux waxaa lagu yidhi doon samayso oo idankayga ku samayso adigaya wixii ku rumeeyey ee ku raacay ehelkaagana doontaa saar waxaa leeyahy wixii ilaahay khalqi adduunyada ku abuurayna ayakana labiya dhiddi ka saar baa lagu yidhi xayawaanka oo dhan labiya dhiddi ka saar adhiga labiya dhiddi ka saar oo geela labiya dhiddi ka saar oo lo'da labiya dhiddi ka saar oo dameeraha labiya dhiddi ka saar oo digaagga labiya dhiddi ka saar oo bisadaha labiya dhiddi ka saar oo libaaxa labiya dhiddi ka saar oo shabeelka labiya dhiddi ka saar xayawaankaasoo dhan khankay galayaan iyaku halka bini aadankuna dusha sare ay korayaan markaa nebi nuux calayhi salaam jibriil buu ku yidhi yaa jibriil khalqigaasi qaar baa cadaawa dhexdooda ay taallaa mar walba col ah oo aan is arki karaynin bisadda maaragtaane iyo jiirka doolliga labadaas isma arki karaan libaaxa iyo dameerkuna isma arki karaan shabeelka iyo maaragtaane xooluhuna isma arki karaan sideen meel u wada korsiiyaa buu yidhi khalqiga intaa leega cadaawaddu ay ka dhaxayso markaasaa loo soo waxyoodoo lagu yidhi yaa nuux rabbigaa wuxuu ku leeyahay marka hore ayaa cadaawadda dhex dhigay dhexdooda markaasuu yidhi yaa jibriil dee rabbigaybaa cadaawadda dhex dhigay dee rabbigaa wuxuu ku yidhi nuuxow haddana annagaa dhexdooda maxabba dhex dhigaynee adigu doontaa saar baa lagu yidhi maxabbadu waa nicmad xagga ilaahay ka timaadda kadaalika cadaawadduna waa colaad waxa weeyaan waa cuquubo bini aadanka ku timaaddo xagga ilaahay bay ka timaaddaa laa taqacu almusiibatu ilaa bidanbin walaa turfacu ilaa bitawba baa la yidhi balaaya ummad kuma dhacdo ilaa dembi dadku ay galeen bay balaayadaasi ku timaaddaa haddaad aragta ummad isjecel oo dhexdooda maxabba ay ka jirto maxabbada iimaanka ayaa keena acmaasha ayaa maxabbada keenta haddaad aragta ummad nabad haysatana nabadda iimaanka iyo camalka saalixa ayaa keena haddaad aragta ummad dhexdooda cadaawad iyo colaad iyo maaragtaane xumaani mar walba ay dhex taallana cadaawadda iyo xumaantana waxaa keenaysa waa macaasida ayaa keenaysa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam habeenkii leylatulisra waalmicraaj markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam samada loo qaaday ayuu arkay nebigu markaa wax dhulka ka imanayoo samada koraaya iyo wax maaragtaanay samada ka soo daadegayoo dhulka u dhaadhacaya markaa jibriil calayhi salaam buu nebigu weydiiyuu ku yidhi yaa jibriil waxaan arkayaa wax samada dhulka ka soo koraya oo samada imanaya iyo wax samada ka soo daadegaya oo dhulka u dhaadhacaya maxay kale yihiin balii sheeg markaasaa lagu yidhi waxa dhulka ka soo baxayaad arkaysay waa camalka bini aadanku ay qabanayaan waxa samada ka soo daadegaya dhulka imanayana waxa weeyaan camalka bini aadanku ay la yimaadeen xaalad waafaqsan baa samada ka soo daadegaysa baa lagu yidhi hadday bini aadanku ilaahay rumeeyaan oo ilaahay ay adeecaan oo sida ilaahay uu jecel yahay oo ay u socdaan xagga ilaahay wax wanaagsan baa bini aadanka uga iman khayr baa samada uga soo degi barakaadku samaday ka yimaadaan naxariistu samaday ka timaadaa dembi dhaafku xagga samaday iyuu ka yimaadaa malaa'igtu samaday ka soo daadegtaa arsaaqadu samaday ka timaadaa waxa xun oo dhanna bini aadankan inta badan acmaashooda xunxun markay kor u fuusho leanna xaalad waafaqsan baa xagga samada ka imanaysa marka maxabbaduna khasaa'inta ilaahay bay ka buuxdaa ilaahay maxabbaha inoo soo raadhiciya amiin dhahada cadaawaddu maaragtaana iyo colaadduna xagga ilaahay unba iyaduna ka timaadaayo waa camalka bini aadanka
marka camalkaaga hadduu hagaago xaalad wanaagsan baad adduunyadana aad heli hadduu camalkeennu xumaadana xaalad xun un adduunyada ku dhex jiraynaa waa sunnada ilaahay tabaaraka wa tacaala koonka uu ilaahay ugu talagalay marka khazaa'inu kulli shay waa biyadi illaahi jalla wacala wax walba khazaa'inta ilaahay bay ka buuxaan amnigu xaggiisuu yaallaa cadaawaddiyo colaadduna xaggiisa unbay taallaa balaayadiiyo masaa'ibtu xaggiisay ka timaadaa barwaaqada iyo nabadgelyada iyo horumarka la doonayana xagga ilaahay buu ka yimaadaa taquulu albalaa'u fii kulli yawmin ilaa ayna atawajjahu yaa rabbi fayaquulu lahaa idhabii ilaa acdaa'i wa uli macsiyatii balaayada hadlaysa oo le ilaahow adiga ay samaystay anigee halkeen aadaa ii sheeg markaasuu ilaahay idhaahdaa kuwa aan nacabahay ee acdaadaydae colka ila ah ee 24 saacana anigay caasinaya ee dembiga iyo macaasida ku jira balaayadu waxay tidhaahdaa ilaahow halkeen tagaa balaayadii baa hadlaysa yaa rabbi balaayo adaa ay samaystay anigu halkeen tagaa markaasuu ilaahay idha idhabii ilaa axibbaa'i wa uli taacatii kuwa aan jecelahay ee taacaddayda 24 saaca ku sugan adigu xagga aad baa ilaahay idhahdaa balaayooyin barwaaqadiina way hadlaysaa barwaaqada u fiirso dadka gaalada xaggooga barwaaqada u badan maxaa barwaaqada loogu badiyey ayaga waxaa loogu badiyey ilaahay inay xasuustaan baa loo diidan yahay ilaahay inay gartaan baa laga ilaalinayaa ilaahay caza wajalla maaragtaane in ilaahay caza wajalla ay caabudaan baa loo diidan yahay adduunka dusheeda maadaamay ku caysiyeen iyaku dhibka ayaga xaggooga ku badanaya maadaamay gaalnimo ku sugan yihiin ama dadka muslimiinta ee mu'miniinta ilaahay markay caasiyaan ee dembi ay la yimaadaan balaaya lagu soo dejin maxaa balaayada loogu soo dejinayaa dembigay adduunyada ku galeen ayaa iyaka adduunka dusheeda lagaga maydhayaa say aakhiro u tagaan iyagoo wax dembiba jidhkooga uusan ku hadhin oo nebigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka murugi ma asiibto xanuun ma asiibo qodaxi ma wareento daal ma asiibo lafagaraac jidhkiisa kuma dhaco xataa qodaxda mudaysa buu nebigu yidhi qofka muuminka dembigaa lagaga dhaafaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka dembiga ayaa ilaahay kaga maydhaa saa darteed camalkeenna haddaan hagaajinno adduunka dusheeda ilaahay caza wajal xaaladeenna isaga inuu bedelayaa le'anna axwaal oo dhan waxay ku imanaysaa waa camalka bini'aadanka khusuusan dadka mu'miniinta ee muslimiinta ee ilaahay iimaanka iyo diinta islaamka uu ku galladaystay adduunka dusheeda markay ku gafaan iyaku gefkay adduunka dusheeda ku galaan adduunkaa lagaga goynayaa iyaka marka khasaa'intu ilaahay agtiisay taallaa amni hadday noqoto xagga ilaahay buu yaallaa barwaaqo hadday noqoto xagga ilaahay bay taallaa yaa ciz iyo sharaf hadday noqoto xagga ilaahay bay cizigu yaallaa hanuun haddii la doono hanuunku xagga ilaahay buu yaallaa arsaaqad baraka leh haddaad doonto arsaaqadda barakada leh xagga ilaahay bay taallaa makhluuqa ilaahay makhluuqa kale waxba ilaahay uguma dhiibin haddii layskugu dhiibi lahaa haa gaaja laysku dili lahaayo bini'aadanka dabiicaddiisu waxa weeyaan maadaamuu daciif yahay waxa uu haystana waa wax taag yar weeyaan mar kastana bini'aadanku wuxuu eegaa isaga aragtidiisu ku xisaabtamaa aragtideennu xad bay leedahay oo gidaarka derbiga waxa ka dambeeya qofka bini'aadanku ma dhaafi kara araggiisu awoodda bini'aadankuna xad bay leedahay sifaadka qofka bini'aadanku xad buu leeyahay dulqaadka qofka bini'aadanku xad buu leeyahay ghinada qofka bini'aadanku xad bay leedahay hebel waa khani haddii lagu yidhaahdo dee inta uu leegyahay inta ghinadiisu ay tahay ee harwadiisu ay tahay unbay ghinadiisu la eg tahay ilaahay marka lagu leeyahay waa khani ilaahay waa khani waa inaga deeqtoon yahay innaka hebelka waa khani khanidaadu adiga dukaankaaga ama bakhaarkaaga ku tiirsantahay ee lacagtaad haysato walaakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa khani marka la leeyahay ilaahay makhluuq kuma tiirsana isagu khaaliq weeyaan isagaa makhluuqa abuuray arsaaqadda isagaa abuuray barwaaqada isagaa abuuray wixii ilaahay isagu abuurayna ilaahay isagu ka u baahan maaha waa khaaliqun bilaa xaaja makhluuqaasuu ilaahay sameeyey xaaje isaguu leeyahay u qabatay uma samaysan waa raasiqun bilaa ma'uuna makhluuq oo dhan buu ilaahay quudiyaayuu arsaaqaa cid ku caawinaysa oo ku garab siinaysaana ma jirto waa mumiitun bilaa makhaafa makhluuq oo dhanna ilaahay isagaa laynaya oo dilaya ciduu ka baqayaa oo ku qabsanaysaana ma jirto waa baacithun bilaa mashaqa makhluuq oo dhanna ilaahay jalla wacalaa hal mar keliyuu banka qiyaama soo joojin doonaa wax tacaba oo daaloo ka soo gaadhi doonaana ma jirto
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أبوركيني هربا إلهي يسو صارتانكي ندنبه أنيقا وحي إلتهي با إلهي هل نفكليا أبور كذا يبعثك سو صارتان كذا با إلتهي با إلهي وحبا إلى معه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب سماوات كأدر كيسان سماو أي كسر ريسو انت السماو والبدايكتها إلهي بقياسي قرأ إلهي بقياسي ونبينا إنو شيقو يدي أرلدن يسمدن الديد مسيرة 500 سنة شنبقول سنة الله سعداب النبي عليه الصلاة والسلام سمدن دمعديدنا أيضنا وشنبقول أو سندود سمد كوباد إلى سمد اللباد أيضنا وشنبقول أو سندود سمد اللباد دمعديدنا وشنبقول أو سندود دلكنا جوغنا إلى سمد تضباد ومسيرة 7000 سنة تضبكن أو سنة أيا الله سعنيا إلهي تبارك وتعالى وحليه سماواتك انت لك هي مخلوقاتك كنول أطت السماء وحق لها أن تئد ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله تعالى سمد أيا سوعير تيب النبي عليه الصلاة والسلام عليس بين سوعير تيب النبي يري أفر فرد ميلا ديغو سمد مله إلا حتى إليه ملك أيا أسجوس إلهي تبارك وتعالى تضبط السماوات يوحي مخلوقات هيان ودن إلهي وحي وليه هي تضبط عدل يوحي مخلوقات كل حنول يا انت أرد حيث مخلوقاتك كنول با إلهي يري لحم المضو كلي أيان كسميني واحتعبوا نقصوا قارين هبا يراتين مجرت با إلهي يري خلقك انت لك بلحي أبو ري باهي سقوا ليه أقبته ومسميسن بني آدمku hadday wax samaystaan baahi baa u qabata maradanay samaysteen baahi baa u qabatay qoriganay samaysteen baahi baa u qabatay saacad bay samaysteen baahi baa u qabatay waxaad adigu aad samaysataa baahi baa kuu qabatay leanna adigu baahi baa tahay weel laga buuxiyey baahi oo socota ayaa tahay oo badda adduunka haddii la yidhaahdo dhammeeya waa la dhammayn karaa laakiin bini aadamka baahidiisa dhammeeya haddii la yidhahdo lama dhammayn karo bini aadamka baahi buu leeyahay baahidiisa hal la daboolo haddii la yidhaahdo baahideennu ma dhammaan karayso mar walba kii baahan unbaa tahay adigu waayo leanna sifadaada ayaa sifatulfaqriya ilaahay baa kugu sheegay inaad tahay faqiir faqiirku waa kee baa la yidho waa ka baahan baahidiisu xad aynan lahayn hanigu waa kee waa ka isku filan ee khalqigiisa aan u baahnayn isku fullaashihiisuna xad uusan lahayn يا أيها الناس أنتم الفقراء إلهي بشيغ يا أيها الناس ضدوا أنتم إنكم الفقراء كوابهم باتهين ويادوا بهنتهين مركا إلهي بال إلى الله إلهي بادوا بهنتهين إلهي دين عيسى دوا بهنتهين وحا إلهي اكتسيا لا أيادوا بهنتهين نحرست إلهي بادوا بهنتهين إلهي إناد قرتان بادوا بهنتهين حتى بن آدمك إلهي أي قرتان وحي نغنيان أغنياء بين نغنيان hadday bini aadamku ilaahay ay garani waayaan faqrigii lagu sheegay maahine faqri kale bini aadamka ugu sii ziyaadaya marka bini aadamku waa baahan yahay baahideennu xad ma leh mar kastana bini aadamku baahidiisu ma yaraatee way sii biirtaa adduunka waxa yaallo dhan haddii la yidhaahdo hal qof hal la siiyo baahidiisa ha lagu daboolo waxa adduunka yaallo dhan waa la siin haddana baahidiisii qofka meeshii unbay taallaa haddana adduun kaloo labaad ha lagu daro baahidiisa ha lagu daboolo haddii la yidhaahdo haddana waa la siino baahidiisa halkii unbay taallaa bini aadamka intuu adduunyada joogo baahidiisu ma dhammaanayso makhluuqoo dhan haddii isaga keligii la yidhahdo adigaa iskale qaado maca daalika qofka bini aadamka baahidiisu ma dhammaanayso waxaad adigu samaysatay baahi baa kuu qabatay إلهي عز وجل خلقك أنه أبور إساق باهي ومقبن وخالق ويان إساق أبورتي وأنا مالك إلهي خلقك إساق ملكية مخلوق ودن وحو كجرى إلهي قبض ديسا يتصرف به كيف يشاء مركاسا مخلوق إلهي أوليه تصرفات كان إلهي حقي سيكا إيمانا يعني هذا معلم باي نو ماركتاني
in waaba inoo bariyey